وحاساكا subaxnimadii magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn laga bilaabay olole nadaafadeed oo aad u ballaaran ololaha nadaafadeed oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee marka magaciisa la soo gaabiyay loo yaqaan waa Bari African Development iyadoo lagu arkay saaka subaxnimadii wadooyinka iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Buuhoodle ay soo buux dhaafiyeen iska rogooyinka qaada qashinka iyo waliba waxyaabaha la halmaamo isla markaasna si habsamiyo looga gurayo qashinka wadooyinka iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Buuhoodle waxaana ururka dhalinyarada marka magaciisa la soo gaabiyay loo yaqaan waa Bari African Development ugu dambeyntii qashinkaasi geeyeen dhaam weyn oo lagu talagalay in qashinka isla markaas lagu gubo oo ilaa 5 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Buuhoodle halkaas oo lagu soo gubay qashinkaas intii ay ku guda jireen ururka dhalinyarada ee African Development ololaha nadaafadeed ee maanta ka bilaabeen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaan wax ka weydiinay ololaha nadaafadeed ee maanta ay ka bilaabeen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn 14 bishii 11aad saaka waagu markuu bariyay waxaan magaalada Buuhoodle ka qaadnay qashin oo qashinka aad arkaysaan ee baabuurta ay sido waxa qaaday ururka horumarinta Afrika waa Bari aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa saldhigiisu Nairobi yahay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay wax qabadkiina noo kordhiya waad mahadsantihiin reer Buuhoodlena waxaan leenahay wax qabsada aynu wax qabsano aynu qashinka iyo iska qaadno wadooyinka hagaajisano dadku waxbay qabsadaan markay wax qabsadaan baa wax loogu daraa aad iyo aad baan ururka ugu mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay dadka qurba joogta iyaga dalkooda wax u qabta cid kastaba magaaladooda wax u qabata wadankiina wax u qabta idinka u maqan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa qashin badan baa magaalada yaala xagga biyaha way ka liidataa wadooyinka way ka liidataa waxyaalo badan baa la idinka baahan yahay waa aragtaan waa tihaadninkii iga horeeyay hadalkiisa waa maqlayseen qashinkaas waa aragtaan magaalada ka soo qaadnay ururka la idin sheegay leedo African ya African waa Bari ya maxay ahayd oo fadhigiisu yahay meesha la yiraahdo Nairobi marka waxaan doonaynaa hadii Ilaahay ka dhigo inay noo sii kordhiyaan raxiin saako bisha tahay 14 November 2012 magaalada Buuhoodle waxaan ka qabanay olole baaxad weyn oo nadaafada ah qashinka arkaysan baan soo gurnay oo maxaan ku sheegay magaalada aad uga buuxay waxaana gacan weyn ka geystay ururka waa Bari African Development Association marka magaciisa la soo gaabiyay loo yaqaano oo xaruntiisu tahay Nairobi kadib markii ololaha nadaafada ay soo dhameeyeen ururka dhalinyarada waa Bari African Development ayaa waxa ay deeq lacag gaarsiiyeen curyaaminta ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyagoona ku booqday xarunta weyn ay ku leeyihiin magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn isla markaasna halkaas ku gaarsiiyay deeq lacag oo ay soo direen ururka dhalinyarada ee waa Bari African Development oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi caasimadda wadankaas Kenya anigoo ah gudoomiyaha ururka nadaafada ee gobolka Cayn gargaar la yiraahdo waxaan halkan aan mahadnaqan uga soo jeedinayaa in warbixinana aan u gudbinayaa ururka waa Bari Group fadhigiisu yahay magaalada madaxda Nairobi ee dalka Kenya halkan waxaan u mahadcelinayaa ururka waa Bari Group fadhigiisu yahay Nairobi annagu waa dadkii dagaalada ku dhaawacmay iyo kuwa ka sii horeeyay aad baan u mahadcelinayaa waxaan leenahay walaalihina fooy baan nahay iyagu baan naga warqabatay waa Bari Group waa mahadsan yahay marka ugu horeysa salaam baan u direynaa oo ku mahadsan yihiin lacagta ay soo direen oo soo gaareen Najiib Cabdi Wali Cabdi Xiis telefishinka caalamiga Universal Buuhoodle